afhayeenka ciidanka bilayska iyo hoggaan ku-xigeenka bilmadka iyo bacda saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaa ogtiin baa ciidanka bilaysku wuxuu ku jiray howlgal aan kala go' lahayn muddadanba oo ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalkan. howlgalkii ugu dambeeyey ciidanka bilaysku ay ka howlgaleen xalay waxay kusoo qabteen sheekh aadan cabdi warsame aadan siiro aadan sunne oo khatar ku hayay qarannimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xiray, isagoo abaabulay kana been sheegay howlgal ciidanka bilaysku ay kusoo qabqabfuliyeen oo kan ka horeeyey oo lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo tababaro iyo dabrido ku sameeyey magaalada agagaarkeeda looguna talagalay inay fuliyaan falal qarankan kullid ah. waxaan leeyahay falal qarankan kullid ah. sidaa darteed ciidankan bilaysku wuxuu wadayaa howlgalkaa cid kasta oo ka hadasha ama wax ka sheegtaana waxa loo baahan inay uga yimaadaan madaxda sare qaranka ciidanka bilayska si aan wax u fahansiino. waxaanu ilaalinaynaa waa qarankan iyo ummaddan iyo shacbigan iyo hantida ummadda. cid kastoonu u aragno inay lid ku yihiin ama halis ku yihiinna waa qabanaynaa. waa mahadsan. saad la socoteen war-saxaafadeedkaygii hore toddobaadkii hore ciidanka booliiska oo kaashanaya ciidamada amniga ee wada shaqaynta loo leeyihiin waxay gacanta ku soo dhigeen koox maleegaysay arrimo khatar ku ah amniga qaranka iyo shacabka somalilan, kuwaasoo meel ku beegan koonfurta magaalada Hargeysa meesha la ilaa Ubaale ku qaadanayay dabrid. dhammaantoodna waa la soo qabtay, waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodooda baalistii way socota. sidoo kale xalay oo bishu ahayd 6/9/2017 waxay ciidanka booliisku howlgal ku soo qabteen wadaadka la ilaa aadan cabdi warsame loo yaqaano aadan sunne, kaasoo khatar ku ah nabadgelyada qaranka iyo shacabkaba, isagoo ciidanka amniga kala hor yimid iska caabin xooggan kadib markii uu soo abaabulay kooxaha isugu jira rag, dumar iyo dhalinyarada kooxda loo yaqaano himilo, kuwaasoo ciidanka kala hor yimid dagaal xooggan. yani markii la qabanayay ciidanka booliiska waxay kala hor yimaadeen dagaal xooggan. waxaa kale oo wadaadkani maalintii ciidda garoonka Hargeysa stadium dadweynaha kula hadlayay hadallo kicin dadweyne ah, isagoo ka been sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee kooxdaas tafriidka sameynaysay lagu soo qabtay, isagoo ku sheegay in la soo xidhay oo isagu tafriid ka sameynayay kuwaas oo isagu mas-uulka yahay. wuxuu ku andacoonayay waa la iska soo xidhay waana bilaa dembi, isagoo maxeeraaliya ma maxkamadba suu ku ogaaday inay bilaa dembi yihiin. waxaasoo dhan wuxuu ka sheegay khudbadii jimcaha ciidda ee loogu talagalay dadweynaha in loo sheego. waxaa kaloo ciidamada amniga ku tilmaamay oo mar kasta ku celceliyaa waa gaalo ama gaalay u adeegaan. war xaggee gaalada u adeegaan? ciidanka booliisku qaranka ay u shaqeeyaan, shacabka somaliland u shaqeeya, waa kuwa nabadgelyadooda habeen iyo maalin ay ilaalinaya. kuwaasi ku sheegaya waa gaalo, waa been aan sariir haatan olahayn. haddaba waxaa isweydiin leh raggan uu leeyahay dembi ma laha, maxaa loo tababarayay? maxay u sameynayeen dabridkan? wadaadkan oo hadda xidhan baalistiisana ay noo socoto waxaa xadhigiisa loo soo maray shifo sharciga waafaqsan. waxaa loo soo gooyey waana faras, kaasi ayaana gurigiisa lagu gaday laguna soo qabtay. sharciga ayaana la horgeyn doonaa haddii la yidhaahdo. ugu dambeyntii waxaan dadweynaha reer somaliland u sheegaynaa in ciidanka amnigu ay gacan biraha ku qaban doonaan cid kasta oo falal khatar ah oo nabadgelyada khatar ku ah samaysan. waxaanan uga digaynaa dhalinyarada somaliland meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan in la wajar habaabiyo oo waxaan jirin loo sheego oo ay amnigooda ilaashadaan, wixii ay arkaanna inay ciidanka usoo sheegaan. intaas waxaa dheer xalay markay ciidanka booliisku qabanayeen sheekhaas ilaa sheekhan cabdi warsame ciidanka booliiska wuxuu kala horiyay iska caabin xooggan. taasi waxay keentay in albaabkiisii hore guriga la jabiyo. sifa sharciga waafaqsanna waa lagu jibiyey.
waana lagu soo qabtay waana xulan yahay baalistina waysan u socotaa haddii ay ka dhiganaan waxaa si degdega loo horgeyn doonaa maxkamadda laba dowle qaadista dembigaasi waana mahadsantihiin. magacay waa maxamed tiri waxaana ka socdaa saab t v waxaad sheegtay in sifa sharciya lagu galay gurigiisa saqbar bay ahayd ciyaal 12 carruur degan hooyadii oo 9 jira dad jilicsan ayaa hareeraha kaga hareeraysan gurigood dad waaweyn miyaan la odhan karin ciidanku iyagoo sifa sharciya ku socda ayaa daseyn tamiyo argagax sameeyay oo ay la sheegay waliba in dhowr jeer hore loo yimid saa la sameeyay oo ubad u dhalay ay ka qaadeen xanuun maxaa diiday in la qabto maalin anagu xanuunka dhaqtirmanayn waxaan ku sheegayaa ninkaasi sifa sharci waa fadlan u socdo xeer been leenahay dastuur been lahayn sharcigu ma oga sharcigu waxa weeye marka waraaq furo soo galo booliisku kowda labada saddexda afarta habeenimo way geli karaan booliisku waa la galeen sifa sharciga kusoo qabteen waana xuleeyay halkaa asan kugu darayaa midhaha markaa dhibaatada ka iman kartay dadka adeer way xanuunsan yahay dadka maanaan jiidaan anagu halkoodii si wixii xanuunsan yahay wixii caruur ah habka loo maray hab ciidan baa ahayd ciidankuna si yaroo nabadgelyo oo wanaagsan buu kusoo qabtay waana shaqadii ciidanka qof kasta oo danta qaranka ama ay loo arko in halis uu ku yahay qarankan saacadu doono iyo waqtigu ugu adag baa loo gelayaa xeerkaan dhigay rasaas baa taallay meesha life bullets oo rasaas nool marka la caabin baa lagala hor yimid waxa jiray dad difaacaya ku qoreystay jameelka cibaada sameeyay abaal buu sameeyay dad baa kala hor yimid booliiska inay waajibkooda shaqada ay gudeen booliiska uu fasaxay xeerku article 35 uu fasaxay inay xabad ridaan oo ay si sharci ku soo xabad rideen cid wax kuma noqonin isagii la doonay waa la soo qabtay waa la xuliyay